السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام برشوانت الصوماليين ملول بأكون وشين دلي دودبا برنامج كنا ما أنت وحن دير رد كساريا وكما نصير ياسين أما الناس ديلي ويل كان أول جاي وين أقارن تبراه برشة قاصة برت فيسبوك أنت أنا أقول جالين سأل لو تنشر حكتي صورنا ميسران فضلا والله مع مركور وحن كعو سنة هدي عشان لك عصبتها أنا عشان لك سبسكرايب جريسيد سودو كله أنا جنبه لك فرتسي وقت والبوهل كان أوهاتين هدي هراء وجود لي أنا في جوجل جريسيد سينا شير جريسيد wixii faahfaahin ah iyo wixii warcelin ahna xagga hoose ee commentiina nagu reebtid aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Nusayr Yaasiin waa 29 jir asal ahaan ka soo jeeda wadanka Falastiin, waalidkii waa muslimiin ka soo jeeda wadanka Falastiin, hooyadii waa macallimada halka aabihiina uu yahay dhakhtar xagga cilmi nafsiga ah. waa urudka labaad reer ka kooban 4 wiil iyo waalidkooda. wiilkan waxa uu ku dhashay magaalada Curaaba ee wadanka Israa'iil. waa mid haysta dhalashada wadanka Israa'iil, waana mid mar walba ku faana inuu yahay Yahuudi. wuxuu saameyn aad iyo aad u ballaaran ku leeyahay baraha bulshada, qaasatan barta Facebook. sidoo kale waa YouTuber caan ah. waxa uu leeyahay oo mas'uul ka yahay akademiyad soo saarta ama tababarta YouTubero taasoo sanadkii qaadata 80 YouTuber walba shardiga ku xiran ayaa waxa uu yahay in channelkiisa ay ku xiran yihiin ugu yaraan 10,000 oo ruux. YouTubero badan ayaa isaga tagay akademiyadan, waxa ayna sheegeen sababta ay uga tageen inay tahay waxa meesha u aadeen iyo waxa ay kala kulmeen inay yihiin laba shay oo kala duwan. waxa ay sheegeen in marka hore laga doonayo in diinta Islaamka laga saaro, sidoo kale in laga doonayo inaad noqoto qof bilaadiin ah, waa inaad noqoto qof ku faana Yahuudi ama inuu yahay Yahuudi. waxa kale oo ay sheegeen in la rabay in lagu soo gudbiyo ama ay noqdaan bridge lagu soo gudbiyo fikradda ah in muslimiinta ay jeclaadaan oo ay soo dhaweeyaan Yahuuda. Nas Daily iyo Steve Harvey hadda waa laba nin oo loo wakiishay inay soo gudbiyaan ama ay faafiyaan diinta cusub ee soo saareen qaar ka mid ah wadamada Carabta iyo wadanka Israa'iil iyo sidoo kale wadanka Mareykanka. diintaas loo magac baxday Ibraahimiya. diintaas waa diin ay ku sheegeen inay kulmisay diimaha oo dhan. Nas Daily hadda waxa uu ku soo diray akademiyadiisa wadamo hor leh inay ka qaadan doonto YouTubero. wadamadaas waxa liiskooda ku soo baxay wadanka Soomaaliya. haddii aan kula wadaago wadamada uu liiska ku soo diray Nas Daily waxa ay kala yihiin wadanka Turkiga, wadanka Falastiin, Pakistan, Soomaaliya, Maghrib ama Morocco iyo Tunis. Nas Daily kuliyadiisa dadka waxa ay tababartaan muddo 6 bilood ah. dadkii ka soo tagay waxa ay sheegeen in dadka tababaraya qaar ka mid ah ay yihiin Yahuudi ama Israa'iili. Nas Daily waa mid mar walba ku faana inuu yahay Yahuudi. haddaba xogta ninkan oo dhameystiran waxa ka helaysaa barnaamijka la magac baxay limaada ansaxabtu min barnaamijka The Next Nas Daily. Nas Daily waa nin rabo inuu faafiyo fikradda ah in Qudus ay tahay caasimada wadanka Israa'iil oo loo aqoonsaday inay tahay caasimad ay leeyihiin Israa'iiliyiintu. Nas Daily waa wakiil loo adeegsanayo ama bridge la rabo in lagu soo gudbiyo fikradda ah in dhalinta muslimka ay hadda soo kacayso la maran habaabiyo oo lagu beero maskaxdooda jacayl ay u qabaan Yahuuda, sidoo kale inay la tacaamulaan dadka Yahuuda. walaal macan waxaan rajeynayaa inaad ogaatay xog badan oo ninkan ku saabsan, sidoo kale waxaan rajeynayaa inaad ka feejignaan doonto khiyaanada ninkan. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. fadlan walaal macan mar labaad waxaan kaa codsanayaa haddii aad channelka cusub tahay channelka inaad subscribe ku caawisid, sidoo kale inaad gambalaalka furatid si aad waqti walba wehelkaana u ahaad. haddii hore ugu jidhi inaad fiidiyooga like garaysid siina share garaysid. wixii faahfaahin ah iyo wixii warcelin ahna xagga hoose ee commentiga inaad nagu reebtid. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.